waxaa arkaysaa laba qoys oo the same income sameeyo oo midna u qalmaayo $600,000 and the other one u qalmaayo $450,000. Why? Dadka qaar waxay haystaan income-kooda inay guriga kaliya ugu qalmayaan, but that's not the case. So lenderka they don't care lacagta u qalmayso. Wax loo yaqaan jirtaa DTI ama debt to income ratio ay qiimeynayaan. Hadday tahay markii wadana soo boqotay magacay ku leedahay daahir waxaan caawinay boqolaal Soomaali inay guri iibsadaan gurigana iska sii gadaan istirman sor. Haddii aad rabto arrimahaasi ama su'aal aad qabto arrimaha ku saabsan real estate-ka numberka halkan naga soo wac. Haddaad gurigeedana ku bixiso 5 to 7 years ku soo biir webinar-kan qabano oo fastremortgagefreedom.com halkan ka arki doontaa isagana markaan ku bilaabo Soomaalidu waxaan ku sheegayaa the formula ha isticmaala bangiga si uu ogaado qofka lacagta uu qalmaayo this formula adigu gurigaada joogtaa samayn kartaa koobkaada shax soo qabso halka soo fadhiso haddaad doonto calculator soo qaado lambarradan kula rangareynaya so that one waxay tahay waa income-ka ku soo gala bishii haddaa hal qof aatin ama laba qof aatin income-kiina isku dara then waxa u qaybinaysaan divide by 12 then waxaa ku dhufanaysaa wax loo yaqaan 43% oo DTI ah debt to income ratio then waxaa ka jirta any debt oo lagu leeyahay haddii deem lagu leeyahay deemahaas oo like car payment taa bixiso haddii credit card lagu leeyahay anything lagu leeyahay that is the maximum housing payment aad bixin karto aad u qalmayso example ku siinay ku fududeynaya let's say Farax baa tahay Farax wuxuu sameeyay 120,000 ama qoyskiina hadda 120,000 isla samaysan divide by 12 aan qaybiyay lacagtaasi waa $10,000 $10,000 waxaan ku dhuftay 43% oo loo yaqaan DTI debt to income ratio $4,300 waxaan ka jiray $500 oo car payment uu bixiyo Farax wuxuu haystaa $3,800 haystaa waxaan ka soo qaadayaa Farax in rate lagu dhufto yahay 43% DTI-gi oo lacagta uu bixiyo $500 oo payment uu bixiyo rate marka lagu dhuftana 6% waa lacagta dhigayana 10% ay tahay credit-kiisuna uu fiican yahay saad shashada ka arkaysaan waxaan ku tusayaa qofkii sameeyo 60,000 ilaa 140,000 qof walba intuu qalmaayo had shashada ka arkayso number 1 dan ku bila 60-ga waxa arkaysaa abto qofka wuxuu qalmaya 250 to 275 laakiin waxaan ku daray lacag ah oo $500 monthly payment debt uu bixinayo deemil uu bixinayo hadda hot screenshot ka qaadan kartaa hadda waxaan ku tusayo ilaa up to all the way down to 140 arkaysaa qofka wuxuu qalmaya up to 650 to 725 uu qalmaya laakiin hadda waxba deyn ugu lahayn oo aan ka saaro da $500 extra ka saaro numberada way isbedelayaan isbedel weyn ku imaanaysa arkaysaa shashada ka arkayso meesha arkaysa 60-ga wuxuu qalmaya qofka up to 300 to 350 uu qalmaya hadda arkaysaa haddana all the way down hadda aad 140 qofka wuxuu arkaysa up to 700,000 oo qalmaysa the only difference ka sameynaya hadda waxay tahay waa lacagta deynta qofka lagu leeyahay laakiin waxa badan dadka surprise ku noqdo waxay tahay income-kaada kaliya ma dhibaatada waxa dadka badan guriga ugu qalmilayay mostly arkaysa qof lagu leeyahay $700 ka payment bixiyo baa hoos u dhigaysa lacagta uu qalmi lahaa almost intaasoo kun baa hoos u dhigaysa so hadda waxaan rabaa mid inaad saxan samayso waxa hoos noogu soo qortaa adi income ku soo galo ma 60,000 aad samaysaa 80,000 aad samaysaa 100K miya 120 miya 140 iyo hadday ka badan tahay income-kaad hoos noogu soo qor so then roughly video aan soo sameynay qof baan soo qaadanayaa exactly waxaan sheegayaa qofka intuu qalmaayo haddii aad ka daashay inaad kareysatana kiradan ay ku dhibtay lambarkana naga soo wici kartaa waxaa ogaanaysaa exactly saa u qalmayso at least that even aad diyaar ahayn this year at least waxay ku ogolanaysaa game plan hayso qorshin haysato the next year saa ugu diyaar garowdo ogow adduunka caalamka qofkii diyaar garooba ayaa guuleystaa haddii kale sanad ku dhiibaya sanad ku dhiibaya xoogaysa adigoo waddanka joogo 20 sano aan guri lahayn waxbana gacan ku haynin xaleemada dariska aad tihiina gurigeeda way baabisay hadda waxay haystaa guri 600,000 ah guri kale raadinaysa oo haddana investment ku samaysato literally wax kale in dhaxay mala kaama hanti badno kaama aqli badno the only difference u dhaxay waa hal go'aan ay qaadatay qof bini'aadam bedeshay qofka inaad noqotaan jeclahay noloshaadana bedesho halas xanoo samee lasoo follow garee video aan soo aragto oo ku saabsan mortgage strategy ku saabsan ama homebuyer ku saabsan shaqada iska tagaya assalamu alaykum